waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa taariikh nololeedka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ismaaciil Yuusuf Raage oo bulshada inteeda badan ugu yeeraan Odawaa waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadkii 1987 waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay isla degmada Aadan Yabaal waxbarashada dugsiga sare waxa uu ku dhameystay magaalada Muqdisho sanadku markii uu ahaa 2005 wuxuu yaraantiisii jeclaa in uu ka mid noqdo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isaga oo ahmiyad gaar ah siin jiray ciidanka xoogga dalka waxa uu ku dadaali jiray midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidii markaasi looga soo kaban lahaa dhibaatooyinkii ay dadka Soomaaliyeed ka dhaxleen kooxaha nabadiidka ah iyo dadka gumaysi kalkaalka ah kadib markii uu waxbarashadiisii dhammaystay 15 bishii 7 sanadkii 2006 waxa uu ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu tababar dhinaca ciidamada ah ku tagay dalka Uganda oo muddo hal sano ah uu tababar ku qaadanayay isaga oo soo bartay shuruucda ciidanka iyo ilaalinta madaxda ee loo yaqaano VIP Protection Course markii uu tababarka u soo idlaaday waxaa loo xil saaray in uu tababare u noqdo ciidan cusub oo dalka Uganda loo geeyay tababar xilligaasi waxa uu sii kororsanayay aqoon dheeraad ah oo ku saabsan dhinaca ciidanka sanadkii 2009 waxaa mar labaad loo qaaday tababar leeli sarkaal ah oo dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda sanadkii 2010 ayuu dalka dib ugu soo laabtay isaga oo xidigla ah waxaa loo furay siminaar 45 cisho ah oo uu ku qaatay dugsiga Hamadawr ee magaalada Muqdisho sanadkii 2010 saraakiil uu ka mid ahaa waxaa loo magacaabay taliyaal waxna uu noqday taliyaha horinta labaad ee ciidanka ilaalada madaxtooyada muddo kadibna waxaa loo magacaabay banduulo urur inta uu ka tirsanaa guutada labaad sanadihii 2010 2012 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay xoreynta kooxaha nabadiidka ee gobolka Banaadir gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Shabeellaha Hoose taasi oo uu ku mutaystay in lagu guddoonsiiyo abaalmarin muhiim ah sanadkii 2013 waxaa tababar ciidan loogu diray dalka Turkiga oo muddo hal sano ah oo ku soo qaatay takhasuska ciidanka lugta iyo luqadaha markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxaa loo dalacsiiyay darajada dhamme muddo kadibna waxaa loo dalacsiiyay darajada gaashaanle oo uu markaasi ku helay abaalmarin ku saabsan howlaha ciidanka sanadkii 2014 waxaa mar labaad waxbarasho loogu diray dalka dibadiisa gaar ahaan isla dalka Turkiga kuliyadda dagaalka ee Turkish Army War College markii uu tababarka u soo idlaaday wuxuu dib ugu soo laabtay dalka sanadkii 2016 waxaa loo magacaabay taliyaha horinta koobaad ururka 6aad ee ciidanka ilaalada madaxtooyada qaranka muddo kadib waxaa loo magacaabay abaanduulaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada sanadkii 2018 ayaa loo magacaabay taliyaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada qaranka waxaana loo dalacsiiyay darajada gaashaanle dhexe 16 bisha 8 2018 digrooto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loogu magacaabay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo dalacsiiyay darajada sareeyo guuto 3 bisha 3 2019 isbeddel lagu sameeyay hoggaanka sare ee ciidanka xoogga dalka qaab dhismeedkiisa ayaa waxaa loo magacaabay in uu noqdo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed 22 bisha 8 2019 kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa loo magacaabay in uu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu ku guuleystay howlgallo dhowr ah oo ka dhacay gobolada dalka Soomaaliyeed isla markaana kooxaha argixisada Al-Shabaab looga saaray degmooyin iyo deegaano ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed warbixintan waxaa idiin diyaariyay Cumar Maxamed Kulmiye